waxaan u soconeen u taaganay nafta u beelayn inaan idinka idin adeegno waay anoo kabii shacabkaana idinkan qaadimiin idinna waxaan u taaganahay waa inaan idinka idin shaqeyn waadna garanaysaan dadkiinii baan nahay saraakiishiinii baan nahay ciidankiinii baan nahay wiilashiinii baan nahay waan ka xunnahay marka mar walba wax shacabkanaga ku dhacayo beerihiina abuurta garab baan idinku nahay annaga idin difaacayna raashin hadduu alla yidhaaho berri waan soo diraynaa weliba raashin oo hay'adeed ma aha ku horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed berri moogi beri dambe uu idin imaan hadduu alla yidhaaho 250 taqriiban qoys raashinkood berri moogi beri dambe waa idin keenaynaa dhakhaatiirna berri waan diyaaradda soo saara hadduu alla idmo dhakhtar oo dadka xanuunsan daweeye berri hadduu alla yidhaaho diyaaraddan soo saari wuu idin imaan dadkana waa keenaysaa ilaahay baa mahadle horta maanta cadowga khawaarijta isagoo ka kaxeeyay magaaladan oo la nabad qabo isugu keenay halkan waxaan u soconay ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u socdaan waa inay xaqiijiyaan nolosha iyo amniga aad idinka rabtaan waxa halkan ciidanku u yimid horeyna ugu joogay waa in dadkanu ay si wanaagsan oo sidaa dadka adduunka oo kale ay u noolaadaan beerahooda fashaan waxbarashadooda helaan ilaahay caabudaan masaajidooda galaan siday rabaan khiyaarkooda u noolaadaan annaguna adduunka iyo intaan noolnahay ee mas'uuliyadda alla na saaray intaan awoodnaan abaalkeeda marinaynaa inaan dadka aan garab u noqono oon u noqono maxaa la yiraahdaa inaan ummadannada iyo shacabkanaga iyo dalkanaga aan ka ilaashano cid walba oo dulmi iyo duulaan ku wada waan ka xunnahay marka mar walba wax shacabkanaga ku dhacay waayo waxaan u soconno in u taaganahay nafta ay ciidankaas xoogga dalka Soomaaliyeed aragtaan ay u beelayaan ay u rafaadsan yihiin ay u dhaawacmayaan ay waxaan oo dhan u sameynayaan horta waa dartiin dhowr qodob baad ka hadasheen dhowrka qodobaad ka hadasheen waa wax muhiim ah annaga waxaan u soconoon maanta u imaanay inaan idin kulanno idin aragno wixii maxay ahayd baahidiina iyo wixii dalabkiina aad sheegtaan aan wax ka dhahno waan dhageysanay wixii maamul iyo ku tacalluqa gargaar dambe iyo dhismo iyo wax la raadinayo hadduu alla yiraaho maamulkii waa nala joogaa deegaan gudoomiyihii iyo wasiirkii iyo kulli iyo dhammaan annaga waxa nagaga aadan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda awoodda meeshan qabatay joogtay iyo maxaa la yiraahdaa dadkan asxaabtanada ee iyaguna noo soo gurmaday waxaan ka shaqeynaynaa qodobadaad ka hadasheen inaan wax ka xaqiijino lambar 1 horto hadduu alla yiraaho 48 saac soo socota horto dadka waan soo celinaynaa waa la keeni doonaa saraakiisha meesha joogta oo Mooye iyo Cabdicaziis iyo kulli iyo way joogan Almahdi iyo saraakiishaas iyo Cornel Akena oo korneelka meeshan isagana UPDF ka jooga dhamaan amar waxaan u siinay in oo 48 saac gudahood horta dadka la soo celiyo hadduu alla idmo waxa intaas dheer macnaha hal guri oo la furtay ama la dhax galay ama wax la yeelayna ma jirto ciidankan wasaa idin sheegay wuxuu u socday waa inuu idinka idin badbaadiyo markii idinka la idin badbaadinayana idinka iyo naftiina iyo maalkiina waa in la badbaadiyo kaan la idinka furtay ma jiro meel la idinka galay ma jirto magaalada sideeda ugu soo noqonaysaa waayo waxaan u soconeen u taaganay nafta u beelayn inaan idinka idin adeegno waay anoo kabii shacabkaana idinkan qaadimiin idinna waxaan u taaganahay waa inaan idinka idin shaqeyn kanaaladana sidoo kale waay waa la idin fasaxayaa idinka waajib baa idin saaran waajiga idin saaran wuxuu yahay inaad amniga wax ka sugtaan annaga amni ma sugi karna kaligaan hadii idinku garab noo noqon annaga cadowga waan la dagaalanaa meeshuu joogaan ugu tagi karnaa waan ku xabadayn karnaa waan ku duqeyn karnaa waan ku baabiin karnaa laakiin cadow inuu intuu soo tago magaalada ama soo dhex galo ama meelahan yimaado mas'uuliyadda idinka saaranta waayo berri qofka ama ciidanku qabtaan ama ay arkaan cid u hadli ee u imaanaysa ee dhahaysa qofkana si ah idinka weey waxa la rabaa marka qaab aad isla ogtihiin saraakiisha oo magaalada amnigeeda ku sugi kartaan oo cidda imaanaysa la og yahay
oo cidda maqan la og yahay oo cidda shaqaysanaysa la og yahay oo beerta ka falanaya la og yahay oo kii laalaab ku jira la og yahay inaad nagala shaqaysaan baan rabaa intaas diyaar muutiin idinka taas waa mid ah ta guudna cidna idin fari mayso inaad dowladdiina iyo ciidankiina aad garab u noqotaan waa waajib idin saaran waxaan idinka rabnaa waxa oo ciidankaas idinka baahan yahay waa inaad garab ugu noqotaan cadowgaas inaga hortaagan in beer la tabcado in magaaladii camiranto in dadkii ilaahay ay u soo noqdaan oo masaajidda laga soo buuxsamo oo la tago maxaa la iskuuladii la dhigto ilmuhu ay nolosha u soo noqoto inaad nagala shaqaysaan intaas ana idinka rabnaa wixii ciidanka waa ciidankiini shalayna idinla joogay hadda maalin dhow bay meeshan ka baxeen waad ogeydeen maantana waa idin soo noqdeen garab bay idin yihiin intii hore in ka fiicanna inay sameeyaan baan ka shaqaynaynaa beerihiina abuurta garab baan idinku nahay annagaa idin difaacayna waadna garanaysaan dadkiinii baan nahay saraakiishiinii baan nahay ciidankiinii baan nahay wiilashiinii baan nahay khawaarijtaas waayo ciddaan la garanayn waxaad naga dalbateen kanaaladana waa dhisanaysaan waa idiin amray magaaladana waa soo degaysaan baahida aad ka hadasheen raashin hadduu alla yidhaaho berri waan soo diraynaa weliba raashin oo hay-adeed ma aha ku horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay oo ilaa 250 raashin ah berri moogi beri dambe uu idiin imaan hadduu alla yidhaaho 250 taqriiban qoys raashinkood berri moogi beri dambe waa idiin keenaynaa taas waa qodob dhakhaatiirna berri waan diyaaraddan soo saara hadduu alla idmo dhakhtar oo dadka xanuunsan daweeye berri hadduu alla yidhaha diyaaraddan soo saara wuu idiin imaan dadkana waa keenaysaa